الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ودرسي أفرتناد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. waxaa darsigaanu maanta ku saabsan yahay qaswatul Uhud, duulaankii la oran jiray qaswatul Uhud. Akramah ibn Abi Jahl, Safwan ibn Umayyah, Abu Sufyan ibn Harbi, raggaasoo dhan baa bilaabay inay Maka ka guuxaan, inay reer Maka ay kiciyaan bay bilaabeen. waa raggii waaweynaa ee sharafta lahaa ee Quraysheed. reer Makay dhex mareen, qabaa'ilkii kale ay dhex mareen, xoolo badan bay ururiyeen. xoolahaasoo dhanna waxaa lagu diyaargaraynayaa ciidankan. ilaahay waa ka waramay, ina aladiina kafaruu, ilaahay wuxuu yidhi kuwii gaaloobay, yunfiquuna amwaalahum, waxay bixinayaan maalkooda, liyasudduu can sabiilillaahi, si ay wadada ilaahay u horjoogsadaan. fasayunfiquunaha, way bixinayaan, uma takuunu calayhim xasratan, laakiin murug iyo nadaamo bay ku noqon doontaa. uma yuqlabuun, waana laga adkaan doonaa. waxay bilaabeen inay dadkii soo ururiyaan meelahaas, dadkii maxaabiista ahaa, dadkii addoommada ahaa, wax walba wixii dagaal gali kara way soo ururiyeen. ciidankii way diyaar garoobeen. marka waxaa diyaar garoobay 3,000 oo raggii dagaalyahanka ahaa ayaa hubkoodii diyaarsaday. dumarkoodiina way kaxaysteen. waxay dhaheen dumarku xagga dambe bay fariisanayaan, ninka fulayga markuu baxso yiraahdo ayay dhagaxa ku dhifanayaan. 3,000 oo awr bay wataan, 200 oo farasna way wataan. duruucdii dagaalka laga xiranayay 700 oo diricna way wataan. waxaa ciidanka guud ahaan dusha ka haysta Abu Sufyan ibn Harbi, laakiin waxaa hogaaminaya oo ciidanka horkacaya Khalid ibn Walid oo la wada garan. Khalid dagaal uu galay oo la jabiyay ma jiro. waxaa gargaaraya Akramah ibn Abi Jahl. gaaladii way soo dhaqaaqeen, Makay ka soo dhaqaaqeen, iyaga oo aad u xanaaqsan, hubkoodii u dhan yahay. waxaa jooga meeshaan Cabbaas ibn Cabdimudalib. markuu arkay ciidanku siday u diyaar garoobeen, nebiga ayuu warqad u soo diray. wuu leeyahay, ciidan badan baa kugu soo baxay, diyaar garow oo is-ilaali. nebiga sallallahu calayhi wasallam warqadii baa soo gaartay, isaga oo jooga Qubaa. warqadii nebigu wuxuu u dhiibay ibnu Abi Kacab. wuu akhriyay, ciidanka intaa leeg baa soo socda, hubkaas bay wataan, is-ilaali. nebigu isla markiiba Madiina buu dib ugu noqday. raggii waaweynaa ee caqliga badnaa ee maskaxda badnaa buu nebigu isugu yeeray, muhaajiriin iyo ansaar. waa la tashaday. nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, hala diyaar garoobo, meel walba xaafadaha hala ilaaliyo. ciidankii gaalada way soo baxeen. waxay yimaadeen meel la yiraahdo Cayn, ayay fariisteen. ina fariisii halkan baa la yidhi. intaas noo sii joogo, wabillahi tawfiiq.